madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa booqasho rasmi ugu jooga magaalada Qaahire ee caasimadda dalka Masar. Tegidda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ay tageen magaalada Qaahire ayaa imanaya kadib markii casuumad rasmi ah oo ka helay dhigiisa dalka Masar Cabdifataax Asiisi. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa mar dhow la kulmi doona dhigiisa dalka Masar Cabdifataax Asiisi waxaana kulanka labada madaxweyne diiradda lagu saari doonaa iskaashiga iyo sidoo kale kor u qaadista dhinaca difaaca iyo ammaanka guud ee labada dal. sidoo kale waxaa la soo qaadi doonaa siyaasadda guud ee geeska Afrika waxaana xusid mudan in dalka Itoobiya iyo dalka Masar uu ka dhaxeeyo khilaaf baan oo ku saabsan biyo xireenka webiga Niilka. sidoo kale wafdigan ballaaran oo gaban madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku tageen dalka Masar ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay burbureen wadahadallada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay garbadanka ka ahayd dawladda dalka Turkiga. waxaana wadahadalladaasi guud ahaanba ay ku soo dhameeyeen natiijo la'aan iyadoo Itoobiya ay diiday in ay ka laabato heshiiska sharci darrada ah ee bishii January ee bilowga sanadkan ay la gashay maamulka Somaliland. waxaana dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ku adkaysatay inaysan horfariisin doonin dawladda Itoobiya ilaa ay ka laabato heshiiskaasi. waxaana heshiiskan mar saddexaad loo ballamay in bisha September la iskugu imaan doono magaalada Qaahira halkaas oo mar saddexaad la iskugu keeni doono dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba maxay kula tahay daawade wafdigan ballaaran oo gabanaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku jooga dalka Masar maxay soo kordhin kartaa barcan ugu reeb dhinaca commentiga. sidoo kale YouTube-kana dhambalka dunida subscribe soo saar iyo sidoo kale barteena X ama Twitter hore loo dhigi jiray barteena TikTok iyo Instagram. aad ayay u mahadsantahay daawade.